بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال وبرنامج كيني قصة إياب iyo qaybtiisii sideedaad. qisada iyaabka aan doonay maanta inaan idin la wadaago waxay ka hadlaysaa qiso iyaab ka turjumaya sida Ilaahay adoomihiisa ugu jawaabo marka ay dhibaataysan yihiin ee ay Ilaahay u qayshadaan subhanahu wa ta'ala. laba nin yaa waxay isku barteen wadanka la yiraahdo Masar. labada nin waa nin ka soo jeeda wadanka Suudaan, nin waa nin ka soo jeeda wadanka Saudi Arabia. labada nin man saaxiibo hodal Ilaahay isku bartay bay ahaayeen, laakiin laba hawlood oo kala duwan bay Masar u joogaan. ninka Saudi Arabia ka mid waa arday oo jaamacad buu dhigtaa. ninka reer Suudaan walaalkii oo bari hore wadanka Suudaan ka soo baxay oo Masar yimi oo la waayay iyo raadiya oo hooyadiiba waxay ku tiri walaalka adoo raadiyo ruux wuxuu soo helo raq iyo ruux wuxuu helo mooyaane ha igu soo noqonin. marka ninka Suudaaniga oo sheekha oo gadweyn oo cibaado badan, ninkaas wuxuu shaqaystaa maalmaha, markuu shaqaysto maalmo iyo rawaxaadna ka bilaabayo Qaahira ayuu sakad u maraa bal in walaalkiisu Ilaahay subhanahu wa ta'ala maaruun ka soo horsaaro. waxay wada deganaayeen guriga ay deganaayeen ay wada deganaan jireen. intii ay wada joogeen ardaygii baa dhameeyay Saudi Arabia iska tagay. ninkiina halkii buu ku haray. hoostooda waxa ku yaala supermarket ama meherado wax lagu iibiyo oo nimankan ay ka adeegtaan. dhowr sano kadib iyo habeenada kamida ninkii reer Saudi Arabia ayuu gurigoodii ka soo toosay waqti 3 habeenimo qiyaastii. deedna wuxuu isiri hooyo way dhagan ugu shaayaan shanqadhaada maqlino, isagoo faraha caaradooda ku socdo gurigiisa ka soo baxay. fadhigii buu iska fadhiistay. in yar kadib hooyadii oo lugeynaysa ayaa ka soo daba gashay. markaasuu ku yiri hooyo maaniga ku toosiyay, hooyo maaniga hurdada ka kiciyay, hooyo shanqadhayda ku soo kacday. asagoo tiri maya shanqadhaada kuma soo kicin ee hurdadu baa iga dhamaatay. ee adiga maxaa ku helay? waasuuna hurdadu baa iga dhamaatay. say isaga sheekaysanayeen buu xasuustay Suudaan iyo ninkii ay saaxiibada ahaayeen. wuxuu ku yiri hooyo Suudaan markaan joogay waxa jiri jiray nin Suudaan oo saaxiib ahayno walaalkii ka lumayo hooyadii ku tiri ha igu soo Suudaan ha ku soo noqon adigoo raq iyo ruux walaalka wuxuu soo helay mooyaan. deedna markaasoo Suudaan buu intuu yar shaqaysto kadibna wuxuu sakad buu u maraasi oo walaalkii Ilaahay ula kulmiyo isagoo raadinaya. deedna waxay ku tiri oo hooyo maxaad ninka lacag soo dhiga iska haysan, maxaad lacag u kaalmeyn weeyday? kolkaasuu hooyo weligiiba lacagta waa diidi jiray, wuxuu oran jiray dar Ilaahay bayna isku baranay, lacag isku maynaan baran. kolkaasay ku tiri haddaba lacagteedan qaado imika u dir, lacagteedan qaado imika u dir. halkeen imika uga diro waqti dambe waar meeradan soo jeeda la hadlo xawaaladaha la hadlo weydiyo lacagteeda u dirnay, lacag weyn u soo dhiibtay. ninkii uu baxay suuqii buu raadiyay, cid buu iyo helay oo telefoonkii wuxuu hayay meheradii ka hooseysay cimaaradii ama fooqii ay deganayeen ka hooseysay. ninkii buu la hadlay, wariyaahe assalaamu calaykum, war waa hebel, war waa ardayga caynka ahay, war walba waxaan ku weydiiyay ma garanaysaa ninkii Suudaaniga ahaa ee cimaarada deganaan jiray fooqa deganaan jiray ma degan yahay ma nool yahay? waasuu yidhi ha waa nool yahay, waa jooga, waa degan yahay. kolkaasuu yidhi waa lacagtaasaan u soo diray, intaas lacagta intaa leeg iga guddoonsii. ninkiina markaasuu dhaqaaqa, fariin baan u diray hadda ha la isugo. wuu ku garaacay gurigii buu ku garaacay. ninkii wuu soo baxay, lacagtiina waa la siiyey. laakiin ninkii wuxuu warramay in aanu dadkana wax weydiisan jirin 3 maalmoodna aanu waxba dhadhaminin wax la cuno. laakiin marka 3 maalmood oo gaajo ku seexday, gaajo darteed seexan kari waayay, oo intuu Ilaahay u kacay salaad tukaday uu ku yiri Ilaahay haddaad arsaaq iigu tala gashay anoon adoomahaaga weydiisanin arsaaqdaad iigu tala gashay isii Ilaahow yaanan cid aan adiga ahayn yaanan baryine. deedna wuxuu yiri Ilaahayow intaanan sujuudda ka soo kicin Ilaahow haddaad arsaaqi qortay arsaaqisi. deedna albaabka lagu garaacay. deedna wuxuu markaa albaabka leegu garaacay sujuudaydii baan ku jiray aan Ilaahay ku bariyo subhanahu wa ta'ala.
markaasay aayadda qur'aanka macnaheedu ku dhadhamaya ilaahay leeyahay amman yujiibu almudara idaa dacaah waa ayo ilaaha subxaanahu watacaala qofka dhibaataysan u jawaaba ee u tawaaba ee wax siiya aman yujiibu almudara idaa dacaah oo wayakshifu suu'a dhibtana ilaaha ka qaada waa ayo ee aan ilaahay ahayni ma jiro ilaah aan ilaahay ahayn oo dhibta ka qaada marka ilaahay baynu baraynaa subxaanahu watacaala ilahay khayrkan hayna waafajiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh